Asalaamu calaykum. Mar labaad waxaan idin tusi doonaa qaabka lacagta loo soo gashto applicationka Tufaax iyo qaabka lagala baxo iyadoo geynaysa lacagtaada 1xbet toos. Marka insha Allah waxaan halkan noo yaalo oo aad aragtaan Tufaax applicationka oo lacagta sarifka ahay iyo 1xbet oo lacagta aan geysan doono. Okay, ugu horeyn waxaan rabnaa inaan sameyno Tufaaxan galeynaa. hadda aniga lacag waxa ii dhex taalo $72 ii dhex taalo, soo waxaan rabaa $1 inaan ku soo darsado $71 si uu noqoto. waa idin tusi doonaa insha Allah. ugu horeyn application markaas aan usoo dhex gashid waxaad ka dooranaysaa lacag dhigasho, buttonka lacag dhigashada. iska ilaaliya mar walbo waa idin sheegaa lacag dhigasho dooro marka lacagta aad rabtid inaad soo dhigatid. lacag dhigashada aan dooranayna waxaad halkan select payment ayaad ka dooranaysaa EVC ga ama si lacagta meesha aad rabtid inaad ka soo dhigatid. anaga marka EVC aan dooranaynaa, EVC Sahal iyo Telesom. EVC dadkan koonfurta joogan Sahalka, Puntland iyo Telesomka oo Hargeysa. insha Allah anaga waxaan joognaa Muqdisho joognaa. EVC aan isticmaali doonaa. EVC halkan aan ka sii dooran doonaa process. halkaas ugu sareyso waxaan gelin doonaa numberkeena telefoonka oo aan ka bilaabi doonaa 615693793. haddii automatic numberkaaga telefoonka aad saan ay kugu gashan tahay ay kugu diyaarsan tahay waa okay. telefoonka lacagta kasoo dirays mar walba kor aad gelinaysaa. second hoos waxaan gelinaynaa lacagta aan rabno inaan soo dhigano. lacag waxaan soo dhiganaynaa $1.1. waa lacagta aan 1xbet ka aan toos geyni lahayn. process ayaan leenahay. wuxuuna leeyahay habkan aad u diri kartaa xidig 799 xidig 3239 xidig 1 xidig 4 gees. qaabkan mobilka hadduu sim card kugu jiro qaabkan oo isticmaali kartaa ama si dir automatic si aad mobilkaaga gudihiisa ugu dhex dirto. call formka ku sii dhufan doona insha Allah. okay, wuxuuna keeni doonaa halkan ayuuna keeni doonaa sim cardka ugu jirtaa. okay, call ayaan leeyahay marka. call markaan dhaho wuxuu leeyahay waxaa gelisaa hal iska geliyaan leeyahay marka. hal geli automatically kadibna pinkeyga gelinaya. markaasaas pinkeyga u geliyo waxa dhan ay dhameystiran yihiin. send ayaan leeyahay. faahfaahinta hal ayaan soo geliyay kadib pinkeyga geliyay. waxaad u dirtay leedahay 1.21 ayaad ku shubtay Tufaax online service. raagaaga waa intaas marka. okay, Tufaaxiga ku noqonaya. okay dheh Tufaaxiga u celi marka. halkaan cancel ku dhuf marka. okay, halkaas ayaa si cancel gareynaysaa marka. okay, lacagta kuma soo gelin, nooma soo gelin. xogta dib u soo akhri ayaan leenahay. xogta dib u soo akhri. okay, automatic xogta dib u soo akhri markaan ku dhufanay lacagta wuu noo soo galay. sometimes wax yar ayuu soo daahayaa 1 daqiiqo wax ka yar. okay, dib u soo akhri hadaan ku dhufano automatic refresh page kan ku sameeynaya. lacagta ayuu dib noogu soo akhrinaya automatic update noogu dhigay. lacagta hadda noo soo gashay hadaa waxayna ay dalkan 70 dhibic something inoo ay hadda waxa noogu soo kordhay $1.1. okay, waxaan leenahay marka lacag la bixid markaan dhahno lacag la bixid markaan doorano waxaa ka sii dooranaya select payment. waxaa ka sii dooranaya halkan lacagta aan rabo inaan u diro. perfect money aad u diri kartaa, 1xbet aad u diri kartaa. okay, marka ugu horey 1xbet markaan rabno inaan u dirno 1xbet aan ku dhufanaynaa kadibna waxaa leenahay process. okay, ID kaleeta igu jiro halkan. ID-gan iska tir. okay, sidaan markuu noo soo kaco waxaa qasab ah halkan inaan ID gelino. sidoo kale halkan magaca laga rabaa inaan gelino, laakiin san magacan hadduu noogu qornayn dhib ma laha ka boodeyna. halkan waxaa gelin doonaa lacagta iyadoo waa lagu dooranaa, waa lagu dhufanayaa buttonka uu ku dhufo automatically. lacagta waxaa noo diyaarsan hadda $1 $2 $5 $11 oo $10 ah oo fiiga $1 $20 $30 saas u taxan yahay. marka anaga $1 hadda soo gashanay halkaas dollar rabnaa inaan la baxno. marka ID-geena 1xbet ka korka ma hayi waxaan sameynayaa waxaan galayaa 1xbet kayga. 1xbet kayga furanayaa baagde. okay, account-kayga waa kan ugu koreyso my account. markaas aan usoo galo saddexdaas xariijana ku dhufanaya. markaan ku dhufto waxaa la iga rabaa
inaan sameeyo my account inaan ku dhufto. waxaa laga rabaa inaan ka doorto my account. fiirsada my account aan dooranaya. okay, ID-ga kor igu sameysan iyo ID-gan isma lahan. waad aragtaa sometimes wuu isleeyahay laakiin hadda ana ID-gayga kan iyo kan isma lahan. waxaa qasab mar walba laakiin inaa iska hubisid ID-ga lacagta lagugu dirayo. ID-gan ayaan dooranaya. sometimes dad waxaa jiro inta shilin Soomaali u tahay, fadlan shilin Soomaali anagama tuurno. waxaa sameysaa hadday shilin Soomaali ku tahay halkaan ku dhufo click markaa ku siisid sidaan kugu soo kici doona. hadda aniga waxa ii dooran shilin Soomaali waa kan ay hoos iyo dollarka. okay, balaskan ayaan ku dhufanayaa. balaska markaa ku dhufto currency name qor uu leeyahay. currency name kan waa magac hadhow aad iisoo qori doontid ayaa halkan ku qoraysaa iyo currency-gana dooranaya. currency mar walba iska ilaali, waxaa doorataa USD ayaan dirnaa anaga, wax kale ma dirno, ogaada. then save aad dhihi doontaan automatic haduu igu darsan yahay mar labaad ma yeela inaan kusoo daro dollarka. okay waaye. okay, back noo dheh marka ID-gan inuu xifdi meel baan ku qorayaa. hadda meel baan ku qorayaa 28 eber 9 68 hal 99. kani waa ID-gayga maahan ID-gayga anaa iskale. fadlan kan ha iska soo gelin. kan anaa iskale kan anaa lacagteeda ku shuban rabo. 28 adiga kaagaaga soo gasho insha Allah. 28 eber 9 60 meel baan ku qoranayaa lacagta ID-gayga. meel baan ku qoranayaa ID-gayga already. ID-gayga hadda waan qortay. okay, maxaa laga rabaa marka back inaan had marka maxaa laga rabaa inaan back dhaho. waxaan tagayaa tufaaxan tagayaa applicationka numberka ID-gayga aan soo qortay ayaa halkan ku qorayaa 28 09 68 199. sidaan markaan usoo geliyo okay, sidaan markaan usoo geliyo halka waxaan gelin doonaa magaca waxa igu qoran dollarka. haddaysan igu qornayn one iska geli automatically halkaan kusii dhuf marka check payment. iska sax mar oo iska ilaali 28 eber 9 68 hal 99 sax ayuu ii yahay. yes dheh marka automatically yes markaan dhaho waxaan soo bixi doonaa. waxaan imaan doonaa 1xbit-kayga laakiin iska ilaali mar walbo process payment markuu saan unapproval uu ku yahay. unapproval waxaa laga rabaa inuu noqdo approval sidaan oo kaleeto. approval markuu lacagta ku tago refresh dib xogta u soo akhriday intaadan tagin 1xbit-kayga dib xogta u soo akhriday wali muusan tagin. unapproval uu yahay meesha ma aragtin unapproval. okay, waxaan leeyahay xogta dib u soo akhri mar labaad. automatic hadda inuu tagaan jeclaya haddaan dhaho xogta dib u soo akhri. okay, halkaan uu ka baxay waad aragtaa soo ma. xogta dib u soo akhriya mar walba dhahaya. waxaan cadeynayaa inuu halkaan ka baxay. hadaati riigmo wuxuu lahay guduudan, hadduu ka baxay riigmada guduudan. haddaan ku dhufan muxuu halkaan kusoo qorayaa approval oo ah lacagta in lagu diray. okay, toos aan u tagno marka approval waa aragtaan. toos aan u tagno 1xbit-kan minimize day. okay, 1xbit-kan okay halkaan ugu sareysaan furayna marka saddexda xariijin. waad aragtaa hadaay lacagta nooguma jirin. waad aragtaa hadaay lacagta nooguma jirin. waxaa noogu jirtay 0.1. hadda waxaa noo soo gashay $1. okay, $1 kan hadda game ama ciyaar ayaan ku saadaalinaynaa. wax walba waan samayn karnaa saad rabno. gamekan oo kaleetana soo galno Manchester United iyo Fulham. hadda yaa badina already waqti wuu dhamaaday. Fulham ciyaartan waxaa ku leh Manchester United saas ay la tahay ka soo insha Allah. marka wax okay good. Fulham ayaa already dhalisay. gool. waxaa dhehayna karnaa ciyaartan waxay ku dhamaan kartaa Manchester United inay dhaliso gool kaleeto almost ama si barbardhac $1 inaan gelist. laakiin mar hadda inaan geliyo aniga lacag almost ciyaartan mar inaan saadaaliyo. waad aragtaan lacagta waa soo dhigtay almost wax walba diyaar ay yihiin insha Allah. saas u geliyo insha Allah. waa maasantiin.